بسم الله الصلاة والسلام على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. walaalayaal caawa waxaa ka hadli doonaa laba mawduuc aad u muhiim ah ila socda. Mawduuca koowaad waxaa weeye qofka hadduu riyo ku arka basbaaska cagaaran, basbaaska kulul. Basbaaska laba nooc ayuu leeyahay, midna waa uu kulul yahay, midna wuu qaboob yahay. Basbaaska kulul haddii qofka riyo ku arko khaasatan gabadha la qabo, waxaa macquul ah inay murugaysan tahay. basbaaska kurbo ayuu ka turjumayaa, laakiin wuxuu kaloo ka turjumayaa kurbo ka bacdi faraj. sida su-aal haddii la isoo weydiiyo, gabadha waxay tiri anoo soo iibsanaya ayaan ku riyooday suuqa joogta. aragtida suuqa guud ahaan wuxuu tilmaamayaa kheyr badan. basbaaskana gabadha la qabo iyadoo soo iibsanaysa waxay tilmaamaysaa kheyr gurigeeda soo galay, barako badan iyo wanaag iyo xasilooni iyo degenaansho haddii mashaakil iyo dhibaatooyin jiray. wuxuu kaloo tilmaamayaa basbaaska cagaaran xoolo. wuxuu kaloo tilmaamayaa owlaad hadday owlaad raadis tahay. al-imaam ibn siriin wuxuu leeyahay basbaaska cagaaran wuxuu tilmaamayaa caafimaad qofka xanuunsan. wuxuu kaloo tilmaamayaa nin daacad ah, ballamadiisa oofinaya, yacni aanan beelo ahayn. gabadha garoobka ah hadday ku riyooto basbaaska cagaaran waxay tilmaamaysaa mashaakilo badan inay soo martay, yacni ninkeedii hore, gurigeedii hore. wuxuu kaloo tilmaamayaa bishaaro, bushra kheyr badan u soo socda inuu rab. gabadha garoobka ah hadday ku riyooto iyadoo cunaysa basbaaska wuxuu tilmaamayaa xoolo, xasilooni iyo degenaansho. hadday ku riyooto ninkeedii hore oo u keenayo basbaaska cagaaran, taa waxay tilmaamaysaa inuu rabo inuu u soo noqdo, laakiin niyad fiican aanu haynin, yacni khayaano iyo dhagar uu wato. gabadha garoobka hadday ku riyooto iyadoo cunaysa basbaaska cagaaran waxay tilmaamaysaa haddii iyada xanuunsanta caadi ahaanay xanuunan la nooshahay caafimaad. hadday ku riyooto iyadoo dadka siinayso basbaas ay dad u qaybinayso, taana waxay tilmaamaysaa inay tahay qof kheyr badan, yacni jecel wanaaga oo dadkana camal ee wanaagsan kula dhaqmo. gabadha weli la guursanin hadday ku riyooto iyadoo soo iibsanayso basbaaska cagaaran wuxuu tilmaamayaa guur, nin wanaagsan, quruxsan. hadday ku riyooto iyadoo cunayso, taa waxay tilmaamaysaa ka guuleysi waxbarashadeeda. waxaa rabay mawduuc labaad inaan ku kordhiyo laakiin iima suurtagelayso saan u malaynayo. waxaa kale ka hadlaya ninka xasla hadduu ku riyoodo basbaas sidoo kale kheyr badanay u tahay inuu yahay qof kheyrka jecel, wanaagga faafiyo. walaalayaal laag noo saara, noona sheergaree, sabskaraabna saara. wassalaamu calaykum.